بسم الله الرحمن الرحيم ولا لها كحنا سي اف بلشو وايد السلام إن دمانتين قيبتاني وقيبتي لبعض قصة حنون كبدن داود قبصتي تي هراء صوت داوتين انتي سو عرقتي انتي آن ولي عرقنا قيبته هراء سي قيبتانو فهمو ها صوت داود الله صعدو marka waxaa qadka taleefanka ku jira Daawud iyo qisadiisa xanuunka badan Ilaahay ku boogadaya walan dulmiguna ma daaho caaqibadiisu waa mid soo degdegta mar ay noqotaba insha Allah ta'ala waxa muuqaalka hore ama qaybta hore ku soo marnay ama nagu dambeeyay inaad raacfaan iyo hawlo aad wax tabar weyn oo adiga ka yimid aysan kuugu qabsoomin oo arintii ay hoos ka baxday marka haddadan aad joogtid America ama Mareykan aad joogtid guri ma haysid shaqo ma haysid wax kale ma haysid see u bartaan noloshaada xagee seexata xagee inkastoo muuqaalada qaar arkay adoo mar gaari ku dhex jiro dhahay gaarigaana seexan see u bartaa walaal way adag tahay noloshu America Africa kala maahan guri America way dad guri jaaranayso waa inaad shaqo haysataa homeless baan ahay shaqo waa inaad haysataa shaqadii sharciyay rabtaa sharcigii inaad haysataa ka horeysa sharcigi waa layga kansalay haddaan sharci haysto waa shaqaysan lahaa markaa ka bacdo guri baan degi lahaa adigu noloshu aad bay igu adkaatay waxaan iska seexdaa baawur gaari dhexdiis ayaan dhex seexdaa ilaa haddadan meesha homelesskan iska aadaa ilaa haddadan gaara dhex seexdaa ilaa haddadan waxaan dhex seexdaa gaari ayaan dhex seexdaa laakiin habeenadan dad Soomaaliyeed la hurdeeyay laakiin waa isoo martay wax badan hal sano ayaan gaari dhex deganaa ku dhawaad oo guri ku ahaa magaaladii lagu xiray marka waa ka soo cararay hadda Minneapolis baan Minnesota baan dadaan macaariif ahayn ayaa la hoydaa habeenadan magaalo kale waa magaalada hadda joogto maahan miya magaalada oo arintaas ka qabsatay magaaladii dibka ugu dhacay walaal waan ka soo cararay magaalo kale bil ka hor baan ka soo cararay dadkii xiray ayaa igu dhibaatadii dib iigu soo celiyay marka sidaa baan uga soo cararay ayagoo hadda inay xiraan doonaya mar kale sabab marka maxay sababta ku maxay tahay ilaa adiga baa maanta u baahan baqacane walaal waxa ku fasiri kartaa sababta ugu hayaana dhibaatada igu hayaana waxay tahay anigu markaan dhowr sano aan dhibaatadan aan qarsanayay waxaan la wadaagay idaacadaha qaar marka idaacadii meeshaan ku noolaa ee magaaladan sheegay wareysiyaa bixis wareysiyada seebad u bixin kartaa oo nooga hadli kartaa dhibaatada aan ku gaarsiinay marka idaacadii baa i weydiiyey in Soomaali maxaad ka codsanaysaa ma lagu caawinaa lawyer hal ii qabtaan oo aan iri lawyerkii kolkii ay i caawini lahaayeen GoFund wax la yiraahdo soo furo oo Soomaalidu arrinteeda ka xumaatay ay igu caawinayeen markii GoFundkii lacag la igu soo dirayo oo walaa xataa gaalo lacag ku soo diraysa sadaqada ay $7,000 laba asbuuc ay ku soo dhacday way Facebook ayay igu dacweeyeen groupkii xiray iyagoo badan kuwa xiray iyo kuwa ay isticmaalayaanba oo dad aan Ilaahay ka cabsan marka Facebookii way iga xireen iyo GoFundkii ka bacdiina waxaa handadaad iyo tahdiid iyo weerar iyo maxaad magaalada wax uga sheegtay annaga wax naga sheegtay dadkeena annaga ina soo magacaawday adiga dhibaatada ayay gaarsiiyeen waan iska sabray wax aan markii meel albaab walba iga soo xireen ka bacdiina waxaa dad YouTuberaha waxay yiraahdeen dadkan weerarka kugu haaya intaasoo dhibaataa ku marsiinaya niyahow waxaad samaysataa furo YouTube adigaad leedahay kolkii YouTube aan leeyahay aan furtay ee aan ku soo bandhigayo arrimihiina weerar gacan ayaa la igu soo qaaday xataa gacan ayaa la isaaray marka group dhan ee iswata waaye oo Ilaahay uu og yahay ruuxan wax ka dhibay aan ku jiro
waa dhibaato waayo yacni adigii baaba gacan u baahan adigii baa maanta magan u baahan xaqiiqatan sida dhibka uu kugu dhacay inkastoo youtube-ka oo furatay oo dad badan ay ka ogaadeen qisadaada laakiin dad badan si qoto dheer umaysan ogaan qisadaada iyo arrinta ku qabsatay markii laga yimaado howlahaasi sharciga ku tacalluqa iyo waxyaalahaas yacni su-aashan ku weydiinaya waxay tahay haddii intaan maanta haddii lagu weydiin lahaa waxaan intaysan kugu dhicin ka hor maxaad filan lahayd maxaad samayn lahayd haddii maanta dib lagu celiyo oo dhibka intuusan kugu dhicin maxaad samayn lahayd maxaa oo adi iyo naftaada ubadkaada iyo dadkaada maxaad ku haminaysaa oo maanta kaa burburay يعني waxa aniga ugu dhaca waa qadar Allah ma sha ilaahay baa qadaray alxamdulillah ala kulli xaal marka waqtigii aniga aan inta dhibaatada ugu dhicin waxaan ahaa qof dadaalaya aabba Soomaaliyeed carruurtiisa korsanaya masaajidkiisa ku xiran diintiisa yani dhaqankiisa iyo diintiisa haysta oo ku adag marka dadka yani حماشة وحي صدقاء الله بحا وحي أهلي قرابة وحي ديرة وحي وقفك وحبير يهي قفك دباتة كل على لقيب صدا لكن وحا إهلي دب يعني أن إلهي شقق كلهين وأيقو السوق إنت إسكا قالي قفك عدو الله إسكا نقضي قف إلهي كحرا أن أرككرين يقف كليجي سعودة أو مساكين معروف أما وناقو أولي بدبكا أنبائي هذي ولا لو يعني كل لي سحر إنسان قدب إيو حوق إيو أود وحي دونان هاي استعمالا يعني ما قرنا يقدال وحان نقول نقضو كل لي قفون إسكا حماشو ميل دقن يقول له نول بابو قاريق إيسو وطانها ما أنتنا وحانا قف هوملس وأولاديسي كوايي نلوشيسي عافمادكيسي حريتيسي يعني انتا وبانها وحكا لأورو كرما أقام hadda marka dib dacwadii ma u furtay dib ma iskugu dayday maxaad samaysay oo rajo ma leedahay rajo in xagga sharcigadii iyo noloshii walaal dacwadeydu rajay leedahay anigu sharciyada ayaan dhiga jiray law school wax la yiraahan waagi baran jiray yani aniga ayaa dib u furay ma waqtigan xabsiga ka soo baxa dacwadeydii cadeymo soo bandhigay inaan yani sharciga la marin يعني سيدي لدونا ليغا يالي marka xaakimkii maxkamadda fadhiya meeshan xaakimka yani ayaa awood iska leh wuxuu diidan yahay inuu dhageysi siiyo hearing wax la yiraaho hadduu hearing siiyo kiiskayga waa dismiss laakiin anigu lawyer maahiyo laysankii lawyernimada ma haysto oo lagu shaqaysanayay marka qof lawyernimada qabsan ما قبسن كرا لوير ولا لوير ولا عق بدن أنا مش شقيس كرا أو شرقي لو شقي لها ما هيو سومالي دي إيه قبل لهيدو يعاون لهيد وحن لوير قبسدنا كوان بقى يجور استاجي أو يجحري يقول ريبورت كريه فيسبوك أو يرفيك أكاون واي كمونة فايليشن واي وجهاس مويان وجه كله وعاوناتكم هي اللي كتميها قابكاس مويان قابكله والله ولا أنا وان إسكشوت مثلا هاي ملي يوتيوب أي فرن حتى يعني جو فان بيج وفر كرا وكحر كرا لكن ولا الوحن كحشوان أي هدتكو أي إسكني بعطيسان أبارة ظروفه أي ترى مت والله إن إلهي أبا يقول له يرحم نفتي وشجع ما عارف أبا إسك إيمان دون تاي مدوني إن عندك كيدي والله وأبا هنا هاي لاير كان العكس سوى العك بدن العك يرمح ولا الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال يعني هدي ميل أي قفك محكمة كحكمته أما قبل أما ديجان أنه أوج مريكا إن كلا شرعية هاي قبل هذا كقار أما قبل هذا كلا دوان ميل كلا قفك مفرن كلام يدعوه أما حاكم كلمة كلامها ما يمتجي كريو محلي رهنا إن حافظ والبحيلة هاي jurisdiction wax la yiraahdo jurisdiction waxa la yiraahdaa xaafad uma qoriyo korto hadii dacwo ama dambi halkan xaafadan laga furo xaafada kala shaqo ma leh meeshii uu faylka laga furnaa way gobol walba qala sharcigiisa gooniga uu leeyahay
أديان أديان يعني قفك بلي marka haddaan آدم كصح qofkaan مر haddaan maanta lacag helo meesha beledkan aan joogo ayaan lawyer ka qabsan karaa maxkamaddii unbuu la xiriiri karaa maxkamaddii ma dhegaysi waxay ku qasban yihiin inay dhegaysina siiyaan halkaa unbaan intaan ka duulno intaan ka yacni diyaarad ka qaadano aniga isagu maalintaan maxkamadda leenahay baan tegi tagnaa gobolka waana kasoo riyo karnaa waxoogaa buu jiraa Minnesota laba saacadood oo diyaarad anagu sida la wada ogyahay dee dunidan horta meelo badan dulmi waa iska jiraa oo qofka waa lagu degdegaa mararka qaar laakiin Mareykan yani marka la fiiriyo shuruucdiisa iyo hab socodka shuruucdiisa yani waxay u eg shuruuc macnaha yani furfuran oo dhageysi leh oo macnaha qofkii uu helayo xuquuqdiisa oo dhameystiran uu difaaci qof difaaca uu leeyahay oo lawyer leeyahay waxaas lagu yaqaan oo aanu maqli jirnay laakiin waxay u egtahay laakiin waxay u egtahay qadiyadaad macnaha qadiyad oo dhinac kale ka raran ama meel kale wax ka socdaan marka sirta ugu weyn ee aaminsan tahay arintaas sababtoo waa maxay tahay asleeda walaal waxaan ku siin karaa haddaad sharciyada aqriso ilaa adiga xaakimka iyo garsooruhu colaad ama yani codad gaar ah kuma qabaan inay soo ka aqoon baaba laga yaabaaba walaal kolley adigu Americana ma joogtid sidaan filaayo ma joogo waxaan kala teeda kale waxaan kuu sheegayaa America يعني إن بعد ذن إثم ولا تجسس قفيه كل wax aadan ogeyn da'ni haka magaciisiyeen dad badan oo aan arkayna waxay jecel yihiin inay ka hadlaan wax wixii loo sheegay waxa la yiraahdaa hearsay waa maqlay sidaa u baa lahaa America cadaaladu kama jirto anigoo macaadalahay muslina maxamed magaciigu yahay qaxooti immigrant ah موادين أنا هين كداية جورج فلويد نينكي أدركي شيء بقورت اللي هو يستاجيه أو عدالة هذي كجرت هلكا بتكافي كذا أذي واحد كوي ما تمرك ولا أياك سوق هذا قحوتيان بقصوقش أياك سوق هذا كذا كلا عند ما يستوى عدالة كما جرت أمريكا وواحد ندكوش كيستان مويه شرعي وحلوه ترى قلنين مدو سيدي لوجو دبعتي لها qofka xarig dadka xarigiisuna waa lacag aniga xabsiga aan galay dadka sida xooli ayaa la kala iibsadaa 8 saacadood maalintii lagu soo shaqeyn jiray 8 senti $1 ka yarna maalintii baad leedahay shanta bari $10 aad bishii leedahay oo saabuun aad kala baxdo 4 saacadoodna waad shaqeynaysaa يعني واجميسيجي أو ننع كلا لوبة alternative slavery وحكلا كل شيء يا أمريكا ننعد بaa sharciga iska leh nin madow waxba kuma lahan xaakimku waa cadaan lawyer-ku waa cadaan maxaa la yiraahdaa xeerlaaliyaha gobolka prosecutor-ku waa cadaan teeda kale qof intaasoo dad ee dulmanaa ayaa xabsida ku xukuman oo madow ama yani muslim ama imalahan insha Allah adiga sir gaar ah oo qadiyadaada ku tacalluqda miyaa jirta oo haysata maxaad ka wadaa si kale iigu sheeg sirgaar yani meel ay arrintu ka raran tahay meel ay arrintu yani ka xaniman tahay ma jirta oo gaar ah dhinac jiha gaar ah wallahi niyow ilaa hadda ma fahmayo ama aniga iga hadal ama qolada wixii ka hadal adiga macnaha يعني halkaas laga haystaa qadiyadayda aad leedahay halkaas qadiyadaydu ka dhiba yani halkaas sartu ka qurunta oo kale adiga dhib waxa ku haystaa aniga hadaan maanta lawyer helo kiiskaygu hal dhageysi yani lawyer asaga waa la dhageysanaya laakiin aniga waa rajul leeyahay markaas rajul إن شاء الله لكن ما هيست ولا العكس $5 لوير يقول دبك يري يقول رقيسنا ما نهيست والله إلهي بقوم بقلية ما فهمتي
ma ka codsatay Soomaalida iyo dadka hadda meesha jooga Minnesota oo kale meesha timid dad ma ka codsatay ma la wadaagto ma share garaysay si ay ku taageeraan bulshada may wallahi walaalo anigu waa iska xishood badanahay yani dadkana anigu ما يوالس weydiisto wallahi waxba حشودكم يعني waa wax mar walba la doonayo wanaagsan laakiin qof adig dhibaa ku haysta xishoodkuna dhibkaada kama hor istaagaya in dadku ku xaliyaan Soomaaliyeed oo ogtahay qofka markuu dhibaataysan yahay oo waa la kacaano nooc kasta ayagoo la way taageeraan meelahaas waa aad ba ugu fiicanna marka maxaa ula sheeg gareyn weyd walaalo anigu waan iska niyad jabay wallahi walaal Soomaaliyeed Cabdi Xaafid nin la yiraahdo iyo Soomaalidii oo codkayga gaarsiiyay meel dheer aad bay uga xumaadeen ayagoo caawinaya dad baa iga hor istaagay oo qalbada iga jabiyay oo cadaawo ah yani aniga marka waan iska niyad jabay yani qof ducufaa inaan ahaan iska soo qaaday maya ducafo ma tihid Daawud ducafo ma tihid yani qof wali xuquuq la tahay qof insaan bili aadana tahay muslima tahay Soomaaliya tahay Soomaaliduna ay يعني in badan oo kamid ah waxa aaminsanaya qadiyadada inta badan Soomaaliyeed ogeynba aysan la soconba aan ogahay aan dareensanahay marka waxba niyad jabin waxba qalbi jabin farajka Ilaahay meel aadan ka filayn buu kaaga iman karaa wax Ilaahay baa adoomiisa ku adeejinaya mar walba ducada iyo wardigana badi أنا كحشون ضد كادو إني جانيس كدad سلا ضد كادو إني كعاويان ضد كادو وأنا سوق المداي يعني هديهم وكحشون يا صوت أما وانيت شبية ما بل نيت هذا كوسون قليسا حشوت كادو وكوتشرية كامل شبية ها ولا ما أنا حدين والله عاونات يقف Soomaaliyeed waxa soo martay qofkii Soomaaliyeed walaalo Soomaali maanta qabiilay ku dhisan tahay dad munaafiqiin ah shalay godka galiyay ee dhibaatay magaalada ka soo baxay qofkii Soomaaliyeed oo caawini kaga in weerar inta lagu qaado oo arintayda ka damqada qofkii damiir leh weer lagu qaadan qof ba xooli la leeyahay si lagu sabab ma qof kaliya uu kuma caawini karo kolku yiraahdo war ninkan maxaa sida tan loogu galayaa in group iswata intii u tagaan ay yiraahaan mahawiya tahay maxaa ka galay mararkeena tahay afaaraheena meesha reer iyo fulaan iyo hebel ma wata laba qof dhiban oo deel caawin Ilaahay ajir looga raadsanaya meesha yaala muhiimna ma aha dhibkan ayaa soo gaarsiiyay iyana soo gaarsiin muhiimadu in dhibkiisu xalista oo bal laga hadlay walaal magaalada aan joogo waxa ugu dhacay baan ku sheegayaa iga dhageysahay af qaban oo Ilaahay ugu ogyahay haye fadlan walaal dad baa afka igu ritay oo ruuxii linaheed Soomaalinimo ama Islaamnimo ama damiir ku damqado dad baa ii taagan inta u taga weerar ku soo qaadayeen war maxaa ka galan ninkan in adeerkeen weey afaaraheena ayaa soo gal fiir wariyaa naga qabsadooy war balan waxa doonaysaa bahalkii in qofkii la handado lagu dacweeyo raarihiisa la yiraahdo reerka faraha kala bax anoo soo taagan dad nool ay afka igu ritaan qof i caawini kara aana jirin maxaa yeelay waa kuwii xiray يعني علكو دع توجا كل إذا مشى ولا يقول دعذي dadkii dad aniga igu xigay ayaa qabiil sheeganaya ayaa ummadii islaamka ahayd ee caawin muslimiinta ahayd ee caawini lahaa iga hor taagan weerar ku hayo leh maxaa ku galay maxaa ka galay reerkeena iyo afaaraheena iyo dadkeena ka bax dadka wax ii galayna malahan wallahi qabiil baa laygu dilay oo laygu abiyusay wallahi dadkaas aad leedahay way dhibaatay macnaha waa dadka agdhowmiya qaraabadaada wax aan qaraabanay oo ma jirto wallahi hadda Soomaali way istaqaanaa Soomaa ha anigu waxaan ahay duduble dadka sida igu sameynayeen waa dad magaalada dad badan xirxiray aniga markii hawiye la yiraahdo duduble anigu dadkaana waa dad magaaladii dad ku noolaa kala dilay oo qabiil hawiye iyo daarood iyo dul kale u kala dilay waxay ku leeyihiin 24/7 waa nin waa mursade waa abdaal waa yani waa nin reeqa saxiya reeq qurac waaye macna
waxa dalkeena waa baabi'iyey group dhan ilaahay ka dheeraaday qabiil ku wada socday anigii imatalayo afka anigoon u dhiibanin oo mas-uul iga oo aan oran yani ka hor socdaan yani afka igu haa gacantooda aan ku hoos jiro qacan naxariis badan oo wanaagsan allah kaaga dhigo aad baa u mahadsan tahay daawud sida aada nolosha sheergaraysay muslimiinta iyo soomaalina waa maqlaysaa meel kastay joogaan waxaan idinka codsanayaa inaad sheergaraysaan muuqaalkan aada like siisaan taageertaan walaalkaana una soo ducaysaan insha allahu tacaala wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu